ninka nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi islaamka waxaan qabsado oo aanan sii daynin ii sheeg nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay xuskiisa mar kastaba laazim waayo ilaahay xuskiisa subxaanahu watacaala qalbiguu dejiyaa oo hamiga iyo warwarkuu qofka ka bi'iyaa oo laabtiisuu ballaadhiyaa oo arsaaqdaa ilaahay ugu furaa oo cadowgaa lagaga guulaystaa ilaahayna wuxuu inoo tilmaamayaa markaynu kelinahay iyo markaynu bulshada la joogno iyo mar walba inayna ilaahay u xusno wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifa baa ilaah yidhi rabbigaa xus adoo isu dhuldhigaya iyo adoo ilaahay ka cabsanaya subxaana wa tacaala oo marnaba ha ka mid noqonin baa la yidhi walaa takun min alghaafiliin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala moogan ha ku biirin sidaa awgeed ayaa waa kii xadiidkii tilmaamayay aakhiro carshuraxmaanka dadka hadhsada maalin dadku qaawanyay dadku dhiban yahay 50 kunoo sannadood u dhiganta cadceeddu soo dhowdahay mashaakil aada u tiro badan leh uu jiro ayuu nebigu wuxuu tilmaamay dadkaas ilaahay uu kurbadaa dhaafiya waxaa ka mid ah warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaa qof ilaahay xusay isagoo keligiiya cidna la joogin oo dabeetana ishiisa ilma ka daaday ama ilma ka dareertay ayuha alaxiba cibaadaadka oo dhami dikri way noqon karaan cibaado khaasa oo carabka iyo qalbiga ku gaarana dikri way noqon karaan cibaadaadka oo dhami dikri way noqon karaan oo dee waxaa layna faray dikri aada u tiro badan le inaynu la nimaado mutlaqa waxaa laynaga reebay wixii dikriga ka soo horjeedo ah khaflada inaynu alle subxaana wa tacaala marnaba khafla kaga sugnaano ayaa laynaga reebay waxaa laynoo sheegay walaa takunuu kaladiina nasuu llaha fa ansaahum anfusahum ha ka mid noqonina kuwa ilaahay hilmaama ka taga ilaahay xusuusan waaya kuwa ilaahay naftoodu ilowsiiyaa markaasi waana faasiqiin baa ilaahay ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala sida awgeed qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa haddaynu ilaahay in badan xusnay inaynu liibaanayno kalimatu lfalaax fi lqur'aan inta badan waxay u soo aroortaa guul adduuniya aakhiraba waa shayga ugu ballaadhan ee guul tilmaami karaa la yidhahdaa kalimatu lfalaax erayada kale najaax iyo waxaas waxa laga yaabaa guul koobana ama adduunya ama wakti gaabana inay tilmaamaan laakiin erayga alfalaax la yidhaahdo fi dunya walaakhira buu sheegaa inuu qofku guulaysanayo ilaahayna wuxuu leeyahy wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun wadkuru llaha kaiira ilaahay in badan xusa waxaa mudantiin ama waxaa xaqiiqa inaad guulaysanaysaan baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waxaa in badan ilaahay inoo tilmaamay waxyaabaha bini aadamka mashquuliya inaynu iska ilaalino oo waxyaabaha jira haddii ay agtaada ku weynaadaan ilaahay ku ilowsiiya kuu dhow marka hore oo ilahay wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri اllah waman yafcal dalika faulaa'ika hum alkhaasiruun war dadka muuminiinta how baa ilaahay leeyahay yay idinka mashquulin xoolaha iyo caruurta ilaahay xuskiisa yay idinka mashquulin waxaa laga yaabaa qofku markuu aada uga warwaro xoolaha iyagunbuu ka shaqeeyaa waxa kaleba wuu ilaabaa maruu xisaabiyo maruu kala wado maruu dirayo maruu baadidoonkeedayay adduun buu noloshiisa oo dhan ku mashquulinaya ama maahee caruur iyo korintood iyo baabkan buu mashquul ku yahay ilaahayna wuxuuna leeyahy subxaana wa tacaala labadaba waxaa ka mudan ilaahay inaad aada u xusto marka ilaahay xuskiisa yuu ku ilowsiinin baa ilaahay leeyahay adduunyada maalka iyo caruurtu yay ku ilowsiinin cidda caynkaasi ku dhacda baa ilaahay leeyahy way khasaarta cidda caruur iyo
حولا كجا مشغوشة إلهي ذكره وخسارة طيبا الله تلمامه سبحانه وتعالى وحي إلهي نوشيغيا إلهي حسكيسا natiijooyinka ugu waaweyn ka ratima resultska ugu waaweyn la hela ka ratima inay ka mid tahay in ilaahay adigana ku xuso bini aadamku magac iyo maamuuska uu jecel yahay adduunka inta badan siyaasiyiinta iyo madaxda iyo waxay u doonaan powerka waxa kale oo ka sii mudan sheeg iyo magac iyo maamuuska in la yiraahdo his highness his excellency iskada erayada in lagu isticmaalo fakhaamatu الرئيس fakhaamatu الملك erayada tani waa qofku ammaan buu rabaa laakiin iyama khayr badan in bini aadam ku ammaano iyo in rabu الsamaawaati والأرض inuu ka ammaano ku sheego ilaahay agtiisa inaad qof magac iyo maamuus kule noqotid iyo inaad khalqiga iyo makhluuqaadka agtooda magac iyo maamuus ku yeelato وهو بنتيا إن أنا مرة بسنين إلهي مركا وحلي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا إحس با إلهي سبحانه وتعالى أنا جاي شيء أو مجعابة إلهي الشيء استسوين نبضنا وهو محي مرة إنه أمانة إنه مرة إنه ضدك مرة إنه إلهي سبحانه وتعالى يقحرينه مرة إنه يسجوا تكرينه الله هضلينه إلهي الشيء استسوين إنه لا شيء نكو بضطه إلهي مركا وحلي هذا أرجع الشيكتان أنه وايد شيء يا با إلهي سبحانه وتعالى إلهي اكتساد ضد مقع عليك النقون إنسان واشكروا لي ولا تكفروا إلهي هطوك الشيء وهذا نقون إنسان قفنا ولا شيء دقن أمني أمان هلا رالي هنشية هلا نلوشيسا موفق نقضى مد خير كلا وافجيو حفظ هلا يا إلال قوليستا آيات صوب عيسى سيدا وقيت يا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكولي أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إلهي وحولي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وحي لو وحي ودي ددك كدو لخري صلاة دنقوك صلاة داسي حمها أوردن يوحي شرع قديدة يدا كان ريبيسا ولذكر الله أكبر با إلهي حسكي سبان وين ولذكر الله أكبر وامحي مفسرين تي علماء التفاسير تربطا بيشيغا يعني ولذكر الله أكبر أي أكبر العبادات إلهي حسكيسة أي عبادة بأوين بالليه أما ما هي صلاة دوحا كنت تكريسان أردن هدا إلهي حستان إلهي حسديسة أوين محاقبا ريسان أردن أما ما هي ومصدر مضاف إلى فاعله إلهي حسد أيضا حصيابا كوين صلاة حسد أيضا كوكو حصيسان ولذكر الله لكم يعني أو إياكم حسك إلهي ويسوي أيضا حصيو أيا كوين حسك إساقا حصيسان صلاة تكرس عبادات كان وحا كوين إلهي حسك أيضا حصيو أما ما هي إلهي حسك يساوح كوين يهي إن معه أي أعضاء الفاحشة والمنكر تنهى عن الفحشاء والمنكر بالي ولا ذكر الله أكبر إلهي يرد حسنابا كوين بين بعضه أن تكون معه الفاحشة والمنكر وكذا أما ما هي واحد صلاة تكريسان ودنبا وحا ووين إلهي حسكيس صلاة ما حين قبلناها عبادة دان مركز مصمين إلهي بينوين بدار حسنا فاتحدوا إلهي بيتقو حصيصا مركات الركوع سبحان ربي العظيم با إلهي بات حصيصا مركز سمع الله لمن حمد لدى إلهي بات حصيصا مركز سجود سبحان ربي الأعلى بات لدى إلهي سكستوءات سميسو مركز التحيات سميسو إلهي بات حصيصا مركز سوحل لي صلاة دبا واحد أوغيسا إلى إلهي حصته فاعبدني واقم الصلاة لذكري نبي موسى مركي إله إلا هذا يبحولي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني
وأقم الصلاة لذكري. أيها الأحبة، عبادته هدي ويدو حسك إلهي وإسكن نقطون أعمال الصمين أيوه قيمة بدن ميالته. صلاة حجك صومك وحن وحن معناه الصمية إن إلهي لو حصيه ضد الصومة يقول ربينا يا ما يصلوبان ما عفمات هلا مكان هلا، لكن وحي معنى لا يصومكم مركز إلهي كحصيش سبحانه وتعالى. حجكم وحي معنى السمين يا مركز إلهي لو حصيه. صلاة وحي معنى السمين يا مركز إلهي لو حصيه. ساس درادين با عبادات كان نحن دورنا إلهي وحليه. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واذكروا الله في أيام معدودات ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. حجكي ودن وحمل كستو لا جوغو إلهي تلماميا إن إلهي لو حصه أعماشه وناكسين حج بالقبطه. وهنا ترى لا إله إلا الله وحده لا شريك له سي حديث تلمامس خير ما قلت أنا والنبيين أو خير الدعاء في يوم عرفة دعاء وحو خير بدل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء وإلهي حسكي صومك إلهي معلي ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها الأحبة، إلهي حسكيس وهو حق قلبي وكل نولاته وقفكو إلهي اللويني اللوين دي سكالوين مخلوقات كردن سادران ديد باد إلهي كهر مرينيسا حسوستي سوح والبا dadka marka khalqigu la weyn yahay dadka istusaan ama magac ka raadiyaan ama maamuus ka raadiyaan ama qurbiyo dhawaashiye ka raadiyaan. لكن مؤمن كحقيقي غاهي إلهي ما مخلوق كلوين سيدا درادين إلهي بو كرادين يا دوانشيو يا ماموس يا مقعبة ساوغيد وحكستو قبنا يا إلهي با مقضى إلهي بحصية سبحانه وتعالى. إلهينا وحين وبالله قاضي أدينو إلهي حصنه إنينو حسلونية دقناشي هلينو مضرا وولدكا مدوليدا عصب xanuunada ugu badan ee bini aadamka ku dhaca waxa kamid ah xanuunada nafsiga ah psychological problems psychological disorders waxyaabaha xanuunada maskaxda ku dhacaya nafta warwar iyo walbahaar iyo walaac iyo deganaanshiyo la'aan iyo stress iyo wax la mid ah. ilaahayna wuxuu leeyahay alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikri illah ala bi dhikri illahi tatma'innu alqulub. kuwa iimaanka laga helay ee qalbiyadoodu ku xasileen baa ilaahay leeyahay ilaahay xuskiisa alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay xuskiisa ayaa qalbiyadu ku xasilaan. nusuus badan oo baabkaa tilmaamaysa inuu dib ka tilmaamay, laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam isna wuxuu inoo sheegay qofka ilaahay xusa iyo qofka ilaaba inay la mid yihiin qof dhintay iyo qof nool. qof dhintay iyo qof nool maxaa u dhaxeeya? soo wax fogi uma kala dhaxeeyaan. bini aadamku markuu dhinto magac male maamuus male waxba male meydka unbaa la yidhaahdaa. haddaad shalayta taajirka dunida ugu weyn ahayd ama madaxweyne ahayd ama boqor ahayd ama kan ahayd cidina odhan mayso boqorka xagga u duwa meydka xaggaa geeyuun baa lagu odhanayaa. xataa magacaagii caadiga habaad waayeysa hebel in lagu yidhaahda xataa heli maysa. wax walaa dunida ku haysayba marka naftu kaa baxdo way kaa dhammaanayaan. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu leeyahy mathalu alladii yadkuru rabbah walladii laa yadkuru rabbah mathalu alxayi waalmayit. xadiisu saxiixeynka ku yaal qofka ilaahay xusa iyo qofka aan ilaahay xusini waxay la mid yihiin buu nabigu leeyahy qof nool iyo qof dhintay farqa u dhaxeeya waxaa uu nabigu tilmaamay riwaayada imaamu muslim uu warinayo guriga ilaahay lagu xuso iyo guriga aan ilaahay lagu xusini meydka iyo nolosha inay la mid yihiin.
وحاو النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي حديث صحيحين كصاروري إن إلهي يري أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أنا وقفك وحي قم ليسنا يوم بان كسبنا يبا إلهي لي هدو يحصوصتو أو يحصو أنا وان حصابا إلهي لي هدو يسوي نفتي سونا حصو أن نفتي ذاك حصابا إلهي هدو ضد إيقاد حصو أن ملأ قولك خير بدن قوله إيقاد حصيبا كحصابا لله سبحانه وتعالى addoonkaygu hadduu taake i soo dhowaado diraac dhudhun baan u soo dhowaadaa baa ilaahay leeyay hadduu addoonkaygu dhudhun ii soo dhowaadana baac jooggiisaan u soo dhowaadaa hadduu isagoo soconaya ii yimaadana aan u ordayaan waxaasoo dhamme maxay tilmaamayaan inta aad ilaahay u dhowaatee xusto in ka badan in ilaahayna subxaanahu wa tacaala ku xusayo kuna soo dhowaynayo ayuha alaxibba waxay culamada qaar yidhaahdaan haddaan dikriga ilaahay fadiilada alla sheegay mooyaane inuu ina xusayo mooyaane fadiilo kaleba haddaan loo sheegin lakafat bihi fadiila taasaa ugu filan baa la yidhahaa sharaf iyo maamuus iyo inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa badiso intaa waxaa dheer oo nusuusta qur-aan iyo xadiid badaniba tilmaamaya ilaahay xuskiisa iyo shayaadiintu inaanay meel wada gelin markaad ilaahay xusto shaydaanku inuu cararo ilaahay haddaad xusto shaydaanku wuu ka hadhaya casrigan dambe dadku jiman iyo il iyo maxaa la yidhaahdaa sixir iyo wax jiman ku saabsan iyo shayaadiin bay tilmaamaan ilaahay xuskiisa haddaad badiso culimmadu waxay leeyihin waa xaqiiqa xataa hadduu ku galay inuu kaa baxayo laakiin dadkaan laazimin maalin iyo laba waxoogaa ka dhagdhagsiinaya deetana u iska daynaya كلما حسكا وصيبة طبعا شيطان كضعفيسا بدنيا أتكيسيسا يرانيا هدو مارد كستا هاوي علماء إلى هذا إلهي ذكريسا كحيا هداد قرآن يصلي النبي لا إله إلا الله بتصطو كواسا كحينيا إنه أوهب لطق يا أوهب لطق با مدحين كبوحة لكن إلهي كحرا وكوير طيبا سوى النبي كحرا عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم صاري قفكو مركو غورغيسا سو غالو هدو إلهي حصو مركو غورغا غلايو iyo marka uu cunada cunayaba shaytaanka wuxuu yiraahdaa la mabita lakum wala asha halkan hooyaati iyo cunatoona ma taalo hadaanu si qofku markuu guriga galayo ilaahay xusin shaytaanku wuxuu yiraahdaa waa soo gaadhnay waa soo haleelay deganaanshiyo hooyaatin iyo cunaba waa helay buu yiraahdaa almabit wal asha labada waa helay maxaa inaad shaydaanka iska erida ku filan bismillah inaad tiraahdo markaad gurigaaga galayso cunada markaad cunayso inaad bismillah tiraahdo bal nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiix ee Abu Daawud iyo Nasaa'i iyo qeyrkood ba wariyeen qofku markuu gurigiisa ka baxayo hadduu yiraahdo bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وستحر يقوبا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحال الله يرهد قفك سيو الله يرهد حسبك قد كفيت وهديت ووقيت وحسبك بالله يرهد نيو أما قبريي والغوغو في الله أول لجو هنونية أول لجو إلالية يبالله إذا أنت هذا لا تماطو شيطان كنا مركي كل ما شيطان كلو حكو إلى هذا كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي سيدات شقاو قبل كرتا نين لجو في الله ذي حق الرب لك في الله ذي أول هنونية أول إلالية إذا إنشورا اسم الربط هذا جورجا كبح ده بلايو كان الله كدافيو أنت نبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام حكوا لي مجرى عمل بني آدم كبو قبطول له غير جب ديه إنه إلهي عذاب كيسكا إلى ليو ذكر الله ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله قفك بني آدم كي مصر يا عملك وقفي عن عذابك دوراه
adduunka haddii lagugu ilaaliyey aakhirana waxa ugu fiican ee lagugu ilaalinaya waa ilaahay xuskiisa. ayuha alaxiba, ilaahay xuskiisa aada badsataa waxaad kaga mashquulaysaa laqwiga iyo maxaa la yidhidiyo waxa kan. bini aadamku markuu isu yimaado sheekuu bilaaba iyo maxaa la yidhi iyo kan iyo maxaa la yidhi macnaheedu waa maxay? waa dikru naas. dad baad xusaysaa, reer hebel baa duulay, qolo kale caynkan yeeshay, siyaasi hebel baa kan yidhi, heblaayaa waxaan samaysay. bini aadam baad xusaysaa halkaad ilaahay ka xusi lahayd. haddaad ilaahay xuskiisa badsato dadka xuskoodaad ilaabaysaa, waxaad kaga mashquulaysaa inaad dadkaba wax ka sheegto. laa mid madaxa walaa mid saaxiiba walaa mid ku dhow walaa mid aa col tihiin, wax sheegoodaba waxaad kaga maarmaysaa inayd ilaahay xusto. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum cani illagwi mucriduun. sifaadka la isku xidhay waxaa ka mid a salaadda in lagu khushuuco ilaahay dikrigiisu uu dhadhanka u yeesho, iyo laqwiga inaad ka jeesanayso. saa awgeed baa ilaahay wuxuuna leeyahy waqti kasta dikriga ilaahay badiya, xataa markaad salaada ka baxdo. faidaa qadaytum manaasikakum baa ilaah yidhi, manaasigtiinna iyo cibaadaadkiinna markaad dhammaysataan waa xajkii, fadkuru llaha ka dikrikum aaba'akum washadda dikra. carabtii jaahiliyada waxaa caadi ahayd markay xajaane xajka dhammeeyaan ayaa qabaa'ilka iyo reerahu isu faani jireen. dabeetana qolo waliba waxay ka warrami jirtay reerkooda inta nin magaca leh ama waxaan ku jirta ama gabayadooda ama waxaas. cid waliba aabbayaashood bay tirin jirtay. hadday carabtii jaahiliyadii saa samayn jirtay dee soomaaliduna way samaysaa. cid waliba reerahooda reeraha iyaga kale ka adka iyo caynkan baanu ahaan jirnayo reerkiina faankiisaad wadaa. ilaahay wuxuu yidhi fadkuru llaha ka dikrikum aaba'akum. sidaa reerihiinna u sheegtaan ama si ka badan ilaahay u sheega baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. waa markii xajka laga baxay. salaada marka la dhammeeya ilaahay muxuu yidhi faidaa qudiyat الsalaatu faاntashiruu fi اlard wاbtaguu min fadli اllah wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun. faidaa qadaytum الsalaata fadkuruu llaha qiyaama waqcuuda wcalaa junuubikum. war salaada markaad dhammaysaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala xoogsi taga, laakiin ha ilaabina ilaahay xuskiisa aada u xusa. adoo shaqo kala qabanaya ilaahay aada u xus. dadka saalixiinta waxaa laga sheegay in sheekha wuxuu ka warramay hooyadii. wuxuu yihi hooyaday marka ay raashinka karinayso waxay ku qiyaasan jirtay wardigeeda. waxay tidhahdaa shaygaasi wuxuu ku bislaadaa kun subxaana allah, kaasina wuxuu ku bislaadaa 2,000 oo laa ilaaha illa allah. macnaheedu waa maxay? halkaad imanka ka tidhaahdaan microwaveka ku shid ama maxaa la yidhaahdaa ovenka shid 20 daqiiqaha ku jiro ayay iyadu wardi tirinaysay. waxay leedahay markaad 2,000 goor laa ilaaha illa allah tidhaahdo shay ku bislaada. idan waxay karinaysay bay waxay garatay inay uga dhigto miqyaaska lagu qiyaasayo wardiga intay akhri karto. waxay culamadu yidhaahdaan, culamada badh baa waxay odhan jireen safarkiisa wuxuu ku qiyaasi jiray qur-aanka uu akhriyo. meel heblaayo intaan 4 jis akhriyaa baan ku gaadhaa buu yidhaahdaa. yacni waxa uu miqyaasa halkaynu inagu ka nidhaahno saacad baa lagu gaadhaa ama nus saaca lagu gaadhaa, wuxuu leeyahay 4 jis baa kugu filan. marka intaad sii socotaa 4 jis baad akhriyaysaa, meeshii baad gaadhaysaa buu leeyahay. dadka kani markaa waxaa ka muuqda ilaahay dikrigiisu siduu qiimo ugu samaynayo, ilaa ayay masaafaadka iyo zamanka iyo wax walba qiyaas uga dhigteen wardiga ay wardinayaan. waa kuwa ilaahay markaa leeyahay haddaad salaad tukataan ama manaasigtiina dhammaysataan ama kan samaysaan ilaahay xuskiisa wada. haddaad fadhidaan iyo haddaad sare joogtaan iyo haddaad maxay jiiftaanba sameeya. ayuha alaxiba, cagsigeeda ilaahay wuxuu tilmaamayaa qaswat lqalbi iyo ilaahay dikrigiisku isku meel ma galaan. dikriga ilaahay haddaad qalbi adag iska dareento wardiga badso, ilaahay xuskiisa badso, qalbigaaga wuu jilcaya. fawaylu lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. si awgeed bay culammadu waxay yidhahdaan dikru llahi tacaala dawaa wa dikru naasi daa bay yidhahdaan. ilaahay xuskiisuna waa dawo, nafta iyo noloshaba daweeyiya aakhiraba. bini aadamka sheegsheegiisuna waa
وحنون. أيها الأحبة، وحبدن بدن با إلهي حسكي سكو حدن. إلهي حسكي سوحو كان نعمدنا إن لهله نقمضة نبتنا إن لفيده. إلهي حسكي ساكانا الأنس مع الله أيو كان إن الإلهي وهشته أيو كان إلهي سبحانه وتعالى ذكر جيسو سأوجد قف كستو إلهي ذكر جيسا بتصدا نرشا دندن يمعان السميسة وايو إساقا وحوال با واركا إنو يهي مفتاح كل شيء. إنك مركين وحاون صنو waxay ugu horeeyay madaxeena ku soo dhaca waan akhtarinaynu raadina. haddii dhibaato dhaqaale ku qabsato waxa ugu horeeya maskaxdaada ku soo dhaca waa asxaabta iyo qaraabadaadii iyo dadkii waxaystay. ma hooyada baad la hadashaa, ma adeerka baad la hadashaa, ma aabbaha baad la maynaade mid waxaysto reerka ka mid ah inaad markiiba tidhaahda mushkiladan dhaqaale hebel ula tag. laakiin waxaa ka horeysa wax kastoo dhib oo ku qabsatay inaad xagga ilaahay la qabato. xagga ilaahay inaad la qabataana waa inaad uun isaga aada u xusta. ilaahay muxuu leeyahy faqul tastakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil الsamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. nabiyullaahi nuux wuxuu ku leeyahay tolkii war ilaahay istikfaartiisa ula kaalay oo badsada. ilaahay waa mid dembiga dhaafee. haddaad istikfaarta badsataan buu leeyahy cirkaa roob joogta a laydinka siinaya. waxaa kaloo ilaahay idinku deeqaya xoolo iyo caruur iyo waxa u baahantihin baa ilaahay waa idin siinaya. xaggaad waxaa ka helaysaa sabab wuxuu uga dhigay in ilaahay uun istikfaartiisa la badsado oo loo toobad keeno. waxa uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxiixa ubay ibnu kacab saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi ilaahay nabigiibuu ku leeyahy ilaahay rasuulkiisiiyo salligaan adiga kugu salliyo waan tiro badiyaaye imisaan ka dhiga. nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam intaad doonto ka dhigo. wuxuu yidhi rubuc ma ka dhiga? yacni ducadayda iyo waxaygoo dhan rubuc ka mid ah 4 meelood oo meel kuwata adiga ma ka dhiga salligaaga. nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam intaad doonto ka dhigo. haddaad ka kordhisa intaana khayrunbaa kuu ziyaadaya. markaasuu yidhi haddaan nus baan ka dhigi. markaasuu nabigu ku yidhi intaad doonto ka dhigi. haddaad ka ziyaadiso nuskaana khayr baa kuu kordhi. markaasuu yidhi haddaad 3 meelood oo 2 meelood baan ka dhigi. markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad ka ziyaadisana khayrunbaa kuu kordhi. markaasuu ku yidhi haddaad ducadayda oo dhanba salliga nebigaan ka dhigaya. markaasuu nebigu wuxuu ugu jawaabay idan tukfaa hamak wayukfar laka dambuk. warwarkaaga waa lagaaga fillaan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, dembigaagana waa la dhaafi. salliga aynu nebiga ku salliyayno calayhi salaatu wasalaam oo aada badsataa wuxuu nebigu tilmaamayaa inuu keensanayo in warwarkaaga lagaaga fillaanayo, ilaahay kaaga fillaanayo. wuxuu kaloo keensanayaa baa layidhi in dembigaaga alla kuu dhaafo subxaanahu wa tacaala. oo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam aad in badan ku sallinayso macnihiisi waxa weeyaan inaad ilaahay wuxuu ama nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay qof hadduu wanaag idiin sameeyo u abaalguda. haddaad waxaad ugu abaalguddo weydaanna u duceeya baa la yidhi oo ammaana. nebigu abaal baynugu leeyahay tiro badan dee diintan oo dhan bayna soo gaadhsiiyey. si kale aynu ugu abaalgudnaa ma jirto inaynu un ilaahay u barino mooyaane. ilaahay baryadiisa markaa innagaa wax ku raadinaynaa, innagay waxtar inoo tahay. waxtarka inoo tahay waxaa ka mida buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markaasi in maxay aynu ku helayno shukrinaqa aynu la nimi, inaynu ku helayno in hamigeenna alle subxaanahu wa tacaala tirtiro waxayna warwargelinayeen. haddii mashkilada ku qabsato halkaa fadhiiso inta tusbaxa qaadato salliga nebiga tiro baday kumaankum ku salli. warwarkaagaasi wuu kaa baaba'aya, dembigaagana waa la dhaafayaa baa la yidhi. ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamay ambiyo badanna inoogaga warramaya mashaakil qabsaday oo xal looga dhigay inay ilaahay dikrigiisa badsadaan. waa mashaakil adduunyo ka aakhirana
xal booyi mashaakilka adduunyo xalka uu yahay maxaa ka mid ah ilaahay xuskiisu waxaa ka mid ah diiqu sadr cidhiidhi inta badan bini aadamka cidhiidhiga naftu goormu tilmaama nin sheekha waxaa ka maqlayay mahmaah soomaaliyadoo tidhaahda buu yidhi dhengadu ama ushu way qabowdaa ereyguse ma qabooba buu yidhi yacni haddii imka ul lagugu dhufto in yar kadibba xanuunkii uu kaa ba'aya laakiin haddii lagu maago ama lagu caayo hore kaagama ba'ayo muddaad naftu xoqanaysaa waxbaa lagaa sheegay iyo waa lagu maagay iyo cid baa wax ku tuli iyo magacaagaa hoos loo dhigay iyo waa naftu wax iska celiya waxbay kugu akhriyaysaa tiro badan leh marka xoqashadeedu hore uma qabowda bay soomaalidu tidhaahdaa ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay nebi maxamed waa la caayay waa la maagay waa sixroola la yidhi waa isagoo xaq sheegaya ilaahay markaa muxuu yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun waxaanu ognahay baa ilaahay yidhi laabtaadu inay cidhiirtoomayso waxay kugula hadlayaan daraaddeed haddii nebi maxamed baa cidhiidhi dareemayo dadka kalena maxaad u malay waa un dadka qof markiiba jawaabta bixiye iyo qof isku daya inuu cadhadiisa qarsado oo ilaahay ajar kaga raadiyo saa daraaddeed nebiyullaahi moxamed ilaahay wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ognahay laabtaadu inay cidhiidhiyoomayso waxa ay dadku kugula hadlayaan daraaddeed iyo cayd iyo maagga ay kugu wadaan ilaahay muxuu dawo uga dhigay markaa laab cidhiidhigan waxaa ka habiinaya saddexdan shaye samee baa la yidhi midi waa fasabbix bixamdi rabbik ilaahay u tasbiixso subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi alcadiim iyo wixii la mida badso wa kun min asaajidiin baa la yidhi salaadana badso kuwa ilaahay u sujuudana ka mid noqo wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin baa la yidhi cibaadadaada kalena badi inta aad ilaahay kala kulmayso idan inaad tasbiixsato oo salaad tukato oo cibaadaadka badsataa waxay dawo ka tahay cidhiidhiga qalbiga gala cidhiidhiga qalbiga galay dawo ka tahay waxay dawo ka tahay dhibaatada kale muuqatee kugu dhacda ilaahay wuxuu inooga warramay nebi dannuun la yidhaahdo nebiyullaahi yuunus waxaa alla ka warramay nebi yuunus in baddu liqday doon laga tuuray baddu liqday haddana xuut halkan maxaa la yidhaha nimiri uu sii liqay nimiri afkii uu galay intaas oo mugdi isagoo ku jira ayaa ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala fanaadaa fi الظulumaat an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin halkaasuu ka dhawaaqay baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala isagoo leh laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin ilaahayow cid xaq lagu caabudo kale ma jirto adiga mooyaane adaa xuma ka hufan oo kuu tasbiixsanaya aniguna daalim baan ahay buu ku dhawaaqa ilaahay muxuu ugu jawaabay faاstajabnaa lahu wanajaynaahu min algam wakadalika nunji lmu'miniin waa ka aqbalay baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala baryadiisii iyo ducadiisii waanaanu badbaadinay marka ma nebi yuunus bay ku koobantay maya ilaahay wuxuu ihi wakadalika nunji lmu'miniin nebi yuunus wixii qami iyo warwar haystay iyo dhibtii haysatay uu badda ku jiray waanu badbaadinay baa ilaahay yidhi dabaddaa loo soo tufay xeebtaa la keenay dabeetana geed baa ilaahay u beeray yaqtiin la yidhaahdo bocorka kanaad tidhaahdaan bocorka waa antibiotic bocorka iyo bakteriyaadka iyo duksiga iyo waxaas isku meel ma yimaadaan kaas baa loo beeray isagoo duubdhacsadaa kaa hadduu ismariyo khalaas waa bogsaday uma baahna wax kale ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waa ka aqbalo waa la badbaadiyey waayo falowlaa annahu kaana min almusabbixiin baa ilaahay yidhi lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun haddii aanu ka mid ahayn kuwii tasbiixda badsan jiray ee in badan ilaahay subxaana wa tacaala u mahadnaqi jiray tasbiixsan jiray cibaadaysan jiray tukan jiray haddaanu kuwa ka mid ahayn baa ilaahay yidhi mushkiladdaa wuu ku jiri lahaa mushkiladda maxaa ka saaray waxaa ka saaray wardigiisii iyo dikrigiisii mushkiladda ku qabsatay markaa xalkeeda waxaa ka mid a ilaahay dikrigiisa cabsida aada cid ka baqayso waxaa ka mid a xalkeeda ilaahay dikrigiisa oo ninkii dunida aan odhan karno wuu u kibir badnaa
oo boqortooyo laga baqa buu ahaa oo dadka laynaya oo dhib oo dhan geysanaya qur-aanku ka warramay ee taariikhda bini aadamka fircoon buu ahaa ilaahay fircoon buu ka warramay wuxuu dhib dadka ku hayay nebi muuse iyo nebiyullaahi haaruun baa loo diray nebi muuse wuxuu tilmaamay inuu ka cabsi qabo ninkan inuu dhib u geysto xalka la siiyey markaa muxuu ahaa ilaahay wuxuu ku yidhi idhab anta wa akhuuka biaayaati walaa taniya fii dikri baa ilaahay yidhi adiga iyo walaalkaa taga oo rasuul baa tiinay nebigaa u taga idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa baa ilaahay yidhi fircoon waa kibray weliba waa xadgudbaya u taga fircoonkaa laga baqayo ayaa la yidhi waajah maxaa u ah markaa uu isku ilaalinaya ilaahay wuxuu yidhi walaa taniya fii dikri aniga xuskayguna haka noogin haka daalin fircoon waxba kuguma samayn karayo haddaad maxay inanii asmacu wa araa baa ilaahay u tilmaamay anaa dunida maamulo baa ilaahay leeyahay aniguni qabso oo xuska badi wakti aan fogeyn baa nin sheekh igu warramay 3 nin iyagoo abaa gardarro lagu qabtay dabeetana xabsiyada adag xabsi ka mida lagu xidha wuxuu yidhi qur-aan baanu akhrinay tiro badan markaa nin ka mida nimankii baa wuxuu yidhi waryaadhe qur-aanka haddaan akhrino waan bixi karaynaa jeelkaasiye may raacaysaan waan yaro shakiyey buu yidhi waxaan idhi adigu bal tijaabi qur-aan badan intuu akhriyun buu iska baxay buu yidhi albaabkaa laga furay wuu iska tegey kii labaad baa yidhi buu yidhi waar nisbe ku baxyeennana waa akhriyayna qur-aan badan oo kale aanu akhrinay buu yidhi dabeetana kii labaadna wuu iska tegey buu yidhi wuu iska baxay ninka ii warramaya waa ka saddexaad marka anigu waan yaro shakiyayaa buu yidhi kolba waxaa isleeyahay war nimankii meeshan adag kugu xidhay hadday ku qabtaan waa ku garaacayaan haddane waansana markii dambe aan sidhi buu yidhi war labadii kaa horreeyeyba ku baxee maadadna tijaabisi waan waday buu yidhi wado ana albaabkan ka soo boday buu waa iska soo baxay oo adigu saad u baxdaan weydiiyey kuwa kale maad arkaynini albaabka markaan marayaa mid igu yidhi buu yidhi miyaad sala tegaysaa markaasaan ku yidhi buu yidhi haa dabeetana uu ii baneeyey buu yidhi waa iska dhaafa ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisa haddaad badsato nabadgelyo iyada kugu filan laakiin inta badan dadku way hilmaamaan sida awgeed ayaa ilaahay wuxuu tilmaamay kuwa dagaalada gelaya mujaahidiinta ah war dagaalamoo sugma baa ilaahay yidhi laakiin ilaahay xuskiisa badsada ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayo haddaad la kulantaan fi'a koox haddaa ishaleeshaan horta ha cararinee sugma baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala gaala haddaad la kulantaan oo dagaal ay tahay sugmo ha cararina maxay kala sameeya baa ilaahay yidhi fadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun ilaahay xuskiisana badsada waxay mudan tihiin ina guulaysataan baa ilaahay tilmaamaya subxaanahu watacaala ayuha alaxiba ilaahay xuskiisa deganaashiya naxariis baa lagu helaa siduu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi duul meel ma fadhiistaan iyagoo ilaahay xusaya ilaa iyo malaa'igtaa isku weegaarta oo ilaahay naxariistiisa daboosha oo xasilooni baa ilaahay ku soo dejiya oo rabbi baa kuwa agtiisa joogee malaa'igtaa uga warrama waxaas oo nicmo ah maxaa lagu helaya marka xuska ilaahay dhab inaga yihi aynu si dhaba ilaahay u xusayno subxaanahu watacaala cagsigeeda wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam duul meel ma fadhiistaan iyagoon ilaahay xusaynin ilaa iyo nuqsaan bay ku noqotaa ilaa kaana calayhim tiradu waa naqs walan yatirakum acmaalakum yani waa nuqsaan bay ku noqotaa qof ma jira buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rajulun mashaa ariiqan qof waddo maray waan ilaahay xusin ilaa kaana calayhi tira وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة نبي حتى المامي عليه الصلاة والسلام قف فريستي يقف سعطاه يقف جيف سنية وأن إلهي حسيني هدو جرؤون نقصان ما يكون طهيب النبي عليه الصلاة والسلام أجر كاكا نقصامي إلى لنتي حريستي وحي لهلا يبقى نقصامي
wixii wanaagee nusuustu ay tilmaamtay oo dhan baa ka nuqsaamaya. sidaa awgeed maalinta qiyaamo baa la yidhi meel jalsa dadkii soo fadhiistay aan nebigana ku sallin ilaahayna xusinin ilaa kaana calayhim tira fain shaaa cadabahum wain shaaa gafara lahum ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. دول ميل انت يسوي ما دام ورك لون مخريان يوانا إلهي بالشيقين إلهي سيدي بخت الدمير دول كدول كعيبين نقضى بالة المام عن مثل جيفة حمار. أيها الأحبة ساعات كستودوني دا ينسوا أمرتو إن إلهي حسني خسارة آخرين وطيبيد الدنيا. على الأقل وحو نبغو ينوت المامي عليه الصلاة والسلام هدي مجلس كاينو فردنا وحوغا لغوي بينا كدعدعان مركا ودبيسا إنو كعينو هدينو نراهنو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إلهي وحي مجلس كادن بينا كدعوين ونافيا. على الأقل مركا نسي كعينون هدينو إلهي حسنو wixii aynu qasnay ee dhib ay naga dhacay waa la inaga dhaafaya. ayaa la xiba marka ilaahay xuskiisa adduunkana waa lagu liibaanaa aakhirana waa lagu liibaanaa.